Justice for Zara. Justice for Zara. Justice for Zara. sida hordhaca muuqaalka aad ku soo daawateen waxay cadaalad ay u raadinayaan gabar yar oo 13 sano jir ahayd oo loo geystay kufsi iyo dil xil ay ku sugneed iskuulkii ay dhiganaysay iyadoona arintan loo aaneynayo inay ka dambeeyeen maamulada iskuulkii ay dhiganaysay muuqaalkan ayaa idinkugu soo gudbin doona halka dhacdada naxdinta leh ee ka dhacday ee daawasho wacan 24 saac ee la soo dhaafay hadal heen aad u xoogan ayaa waxay ka dhalatay dhacdadan murugada leh oo ka dhacday tuulada Sabasaba oo ku taala dalka Malaysia gabadha yar ee loo geystay kufsiga iyo dilka ayaa waxa lagu magacaabi jiray Sara Karina waxaana da'deeda lagu sheegay 13 sano jir waxayna dhiganaysay mid ka mid ah iskuulada jiifka kaasi oo subaxiina wax laga barto habeenkiina ay ardayda ay seexdaan markii ugu dambeysay oo ay familkeeda ay la hadasho ayaa waxa la sheegay in ay familkeeda gaar ahaan hooyadeeda ay wacday isla markaana ay ku tiray in maamulka xigeenka iskuulka uu u sheegay in ay soo qaweysato iyadana ay ku wargelisay in aysan qaweys ay u baahneen waxayna markaasi ay dareentay cabsi aad u xoogan iyadoona hooyadeeda si gaar ah ay ula wadaagtay waxyaabaha ay dareemisay hadalkeeda ayaa intaasi ugu dambeeyay maalin kadib ayaa meedkeeda waxa laga helay dhismo ka agdhawaa iskuulkii ay dhiganaysay waxaana la geeyay meedkeeda mid ka mid ah isbitaalada ku yaala dalka Malaysia waxaana dhaqaatiirta baaritaanka ay ku sameeyeen ay xaqiijiyeen in gabadhan la kufsaday kadibna la dilay waariskeeda oo arintaasi si aad ah uga carooday ayaa waxa ay la wadaageen booliiska dalkaasi Malaysia waxaana ay sheegeen in arintaasi ay iska indhatireen oo aysan talaabo hore u qaadin isla markaana aysan wareesi ama aysan soo qabanin maamulada iskuulkii ay dhiganaysay gabadhooda iyadoo arintaasi ka carooday ayaa waxay soo fadhiisteen baraha bulshada waxayna ka hadleen dhibaatada loo geystay gabadhooda waxayna sheegeen in ay cadaalad ay u raadinayaan dhanka kalena dhaqaatiirta isbitaalka ayaa waxa la xiriiray maamulada iskuulka gabadha ay dhiganaysay waxaana ay u sheegeen inay ku wareejiyaan kiiska gabadhan maadaama iskuulkoodii ay dhiganaysay waxayna ehelka ay ka dalbadeen in gabadha la aaso kiiskana dib loo baaro balse gabadh yar ee geeriyootay ehelkeeda ayaa waxa ay maamulada iskuulka ay u sheegeen in kiiska gabadhooda marnaba loo gudbin doonin iskuulkii ay dhiganaysay maadaama tuhunka uu ka jiro maamulada iskuulka oo gabadha markii ugu dambeysayba ay ehelkeeda ay u sheegtay in cabsi aad u xoogan ay ka dareemayso maamulada iskuulka arintan ayaa waxa siyaabo kala duwan ugu falceliyay bulshada qeybaheedii kala duwan kuwa ku nool dalka Malaysia iyo sidoo kale bulshada kale ee ku nool wadamada kale waxaana dhammaan ay dalbadeen in ay cadaalad u helaan gabadhaas saqiirta ee loo geystay kufsiga iyo dilka wixii warar ee ku soo kordho ee la xiriira dhacdadani muuqaaladeena dambe ayaa idinkugu soo gudbin doonaa mahadsanideen internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadalaya IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah